kulanti wacan wanaagsan daawadayaal hantiina meel wada joogtaan waxaan leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha barnaamijkeena ayaa waxaa maanta kusoo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay kamid yihiin tababaraha kooxda Arsenal oo sheegay in ninkii yiraahdo Odegaard oo dib ugu soo laaban doono dibna ugu soo laabtay tababarka ay kooxda qaadanayso maanta sidoo kale waxa uu sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in uu markaasi ciyaaro kulanka Newcastle ay la ciyaari doonaan toddobaadkan hadaba Odegaard ayaa dhaawac kaga seegay laba kulan oo hore iyo waliba kulanka Athletic Bilbao iyo sidoo kale kulanka ay ciyaari lahaayeen kooxda Manchester City toddobaadkii la soo dhaafay hadaba tababare Arteta ma u muuqdaa in horyaalkan oo ka gacmadeeyay mase wali waa u furan yahay tartan ayaa kala dhaxeeya maadaama shantii kulan ay ugu horeysay ahayd kulamada aad ugu adag ama Big Six-ka tiimamka loo yaqaano saddex kamid ah ay la ciyaareen hadaba kooxda Arsenal imikan wixii ka dambeeya waxa markaasi ay foodis dari doonaan tiimamka yaryar oo markaasi ay la filayo tababare Arteta inuu markaasi dhibac fara badan oo ka aruursado halka kooxda Liverpoolna ay hadda 5 dhibac ku hogaaminayso horyaalka laakiin godkeeda ayaa biyo ugu jira oo 5 kulan ama 6 kulan ee soo socota ay yihiin kulamo aad iyo aad u adag kuwaas oo ay kamid yihiin Manchester City wiliba sidoo kale ay la ciyaari doonaan Newcastle, Man United, Chelsea iyo kulamo kale oo lamid ah hadaba misleedahay sanadkan kooxda Liverpool ayaa ku guuleysan kartaa horyaalka mase waxaad leedahay koox kale ayaa ka soo dhaxbixi doonta intooda baan ahayn hadaba sidoo kale Arteta ayaa waxa uu sheegay in dhaawaca Maduki oo ilaa iyo 2 bilood ku dhawaad oo ka maqnaan doono garoomada sidoo kalena Bukayo Saka ayuu waxa uu sheegay in dhaawaciisu yahay dhaawac iska fudud oo wax dhaawac fasaasna u soo gaarin cabsi darteed oo ka qabo oo markaasi uga baxshay kulanka kooxda Porto ee FA Cup ay isla ciyaarayeen Community-ka Cup-ka ay markaasi loo yaqaano EFL ama Carabao Cup-ka hadaba sidoo kale maadaama uu ku guuleystay ciyaaryahanka best striker ma weeraryahanka ugu fiican dunida Victor Gyökeres sanadkii la soo dhaafay maadaama uu kula guuleystay kooxda Sport Lisbon laakiin Arteta ayaa waxa uu muuqda mid aan markaasi muujinaynin kaalinta uu leeyahay ciyaaryahankan oo aanan dheelsinaynin ciyaaryahanada qadka dhexe ka ciyaara sida ciyaartoyda playmakerada ah ama kubadaha sameeya hadii uu markaasi dheeli lahaa number 10 oo dheelsi lahaa Ize waxa markaasi ciyaaryahankan u fududaan lahayd in kubado badan markaasi uu helo oo markaasi uu ku dhalin karo goolal laakiin hadii uu dhaxda ka dhigtay sidii shinyeerku kaleento uu xirtay Mikel Arteta markaasi oo ka dhigay Subamendi, Rice, Michael Marina saddexdaas say hadii dhaxdu isla wada Kenya yaa marka kubada sameyn kara intooda waa maya mid kasta waa burburiye Bununiga in burburiyaan bay wada joogan meesha dhaxduna waxay noqotay dhax markaasi aad u cakiran afka hore ragga ka ciyaarayeen Martinelli ama waxa sidoo kale Bukayo Saka suurtagal ma noqon karta no maanta dhan ay lock keenan ama set piece-ka kubadaasi ay ka ciyaaraan suurtagal ma noqon karta kooxda tababaruhuna wuxuu noqon doonaa mid ku violate garooba joogista ciyaaryahan Victor Gyökeres kooxda Arsenal oo jooga taana waxa sabab looga dhigi doonaa Mikel Arteta khibrad xumada haysa tirtiisa maadaama macalinka Mikel Arteta noqday mid fulay ah oo inta badan ba difaac mooyee wax kala aan aaminsanayn oo ciyaartii dhanba ka dhigay difaac qadkii dhexe ka dhigay dhagax oo difaac ah oo soo mari karin gadaal dhanba difaac ka dhigay weeraryahanadana macnaha aan lahayn qof marka creative u ah ama vision leh oo aragti dheer leh oo siin kara ama qooni kara ninka ama ciyaar weeraryahanka kaga dheela afka hore inta aad bay adag tahay asxaabteeda qiimaha qaayaha mudan waa kulay sidaan dareemi doonaa horyaalkan hadii uu ay Mikel Arteta kula tahay inuu boorsidiisa banaanka u taalo ay maamulka kooxda Arsenal ay iska cirin doonaan maadaama lacag fara badan oo qasaarshay tababarihii ku horeeyay oo ahaa Arsene Wenger wuxuu keeni jiray kooxda ciyaartooy oo markaasi 1 iyo 2 sanadkii uu kaysan jiray sidoo kale ciyaartooy ayuu ka soo saaray jiray juniorka ciyaartooyda akademiyada ka soo baxda wax buu gadi jiray ciyaartooydaas uu sii gadi jiray qaarna wuxuu ku soo dari jiray line up ka koowaad kooxda
sidaad ogsoontihiin Emirates Stadium hal ran kama uusan dhiibin ama hal senti ma uusan ka dhiibin tababaraha ama ninka milkiilaha iska ah kooxda iska leh Arteta. Arsene Wenger ayaa markaasi dabaray oo sanad kastaba ciyaartooyda oo soo saaro junior ka soo saaro 2-3 inuu sii iibiyo lacagahooda ayuu ku bixin jiray garoonkaas. laakiin Arteta tan iyo markii uu yimid waxa uu kaliya lagu qarash gareynaya lacago ilaa 1 bilyan iyo 300 oo milyan gaaraysa 1.3 bilyan ayuu marayaa. marka aad ayuu adag tahay tababarahan haddii sanadkan horena loogu sheego waxa la sanadkan ciyaartooy internet ku keenayna laakiin waxa u baahanahay koobab oo ay kamid yihiin Premier League iyo Championka. focuska kooxda waxay saartay labadaasi waa hadda Premier League 5 dhibcood looga hayaa, Championka kale hal kulan oo bilowday waana badiyay. waan arki doonaa kale waxa uu markaasi Arteta ka bedelo laakiin qaabka uu hadda ku socdo ilama muuqato qaab oo markaasi horyaalku ugu tartami kara, qaab oo markaasi horyaalka ku keeni kara saddexda difaac ee qadka dhexe joogta ama saddexda qadka dhexe joogta wada burburiyaashada ah Michael Merino, Zubimendi iyo waliba Rice oo dhaxal isla keenayo. falsafadaas ma noqon doonto mid shaqeyn doonto haddii ay sidaas ku sii adkaystana dirishada ayuu ka bixi doonaa sidaan aaminsanahay. adiguna fikirkaaga qaybta commentiga noogu reeb. haddii aad nagu cusub tahay fadlan follow inoo dheh page-ka, noo sii share garay oo asxaabtaada gaarsii. haddii aad horey noola joogtayna fadlan noo share garay barnaamijkeena si ay asxaabtaada u gaaro muuqaalkeena oo aan u helno dad fara badan oo daawada muuqaalkeena. aad baa mahadsantiin asxaabteeda qiimaha iyo qayaha nagamadu waa saaxiibkii Maxamed Karbaariyo oo sidaa iyo nabadgelyo inta dib u kulmi doono. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. صاحب ياشي ذا قيمة قايا هنا.